waxaan doonayaa in yar inaan ka hadlo arrintan coronavirus xanuunkan inkaarta qaba ilaahay naga daweeyay dhibaatada uu dhaqaalaha u keenay runtii waxa aad ogtihiin dadka Soomaaliyeed in aqalada lagu xiran yahay oo dhaqdhaqaaqi aad u yaraaday inaga oo doonayna in dadku kala joogaan oo aanay kuwa xanuunka qaaday ku kala qaadsiin taasoo adduunyada aan la qabno waliba inaga dhaqdhaqaaqeenu Soomaaliya hadanahay wali waa badan yahay waxa loo baahan yahay dawladuna ku baaqaysan dadku aqladooda joogaan taasi marka runtu waxay tahay waxa weeye in dhaqaalihii hoos u dhigayso leena dhaqaaluhu wuxuu ka yimaadaa socodka iyo wax kala iibsashada iyo wax isku geynta iyo wax soo saarka ayuu dhaqaaluhu ka yimaadaa gaar ahaan anaga dhaqaalaha iyagu waxa uu ka yimaadaa waa cashuuraha weeye cashuurahana haddii dadku dhaqdhaqaaqa joojiyaan oo dadkii wax keenaya waxay keenayeen yareeyaan oo dadkii wax iibsanaya waxay iibsan lahayn yareeyaan dhaqaalaha halkaas sidoo khatar ugu yahay waad iska arki kartaan say doontaba noqotay quwadda waxa la saaraya waxa weeyaan Soomaaliyeed in xanuunka lala dagaalamo sida lagu la dagaalamayo ee ugu weynina waxa weeye in guriyaha la joogo guriyaha lagu ekaado dhaqaalaha markaas Soomaalida aad baan uga shaqaynaynaa inaan ogaano dhaqdhaqaaq la'aantu iyo wax kala iibsi la'aantu dhibaatooyinka keenayso dhibaatada ugu weyn ee anaga noo keenaysa waxa weeye in cashuurtii dakhligii dalka soo galiyay aad u yaraanayo waxaan qiyaasaynaa boqolkiiba 40 dakhligiina soo galiyay inuu aan imaneyn yaa qiyaasaynaa lacagta inta badan waxay ka soo gashaa dalku meel kastaba ha ahaadee ama dekada ama waxyaalaha dadka laga ururiyo labadiiba aad bay u yaraanayaan qiyaasteedu waxa weeye boqolkiiba 40 inay isdhimayaan oo lacag fara badan 245 milyan dalkoo dhan marka la eego qiyaastiisa aan wali wadno inay isdhimayaan ayaan ognahay hays dhimaane haddana waxa loo baahan yahay halka la fadhiyo ilaa ay xanuunku inaga baayo anaga mas'uuliyadana saaran marka waxa weeye in aan qiyaasta saxno waxa inoo dhimayso qiyaasta lacagta isdhimaysa intay noqonayso in qiyaasno lacagta markaan qiyaasno marka inaan meel ka doonno oo deelan dawladdu waa inay socotaa dawladdu waa in dadkii mushaarkoodii la siiyaa waa in aqalada lagu noolaan karaa oo makaraysa dawladdu waxay qabanaysay qabataa haddii xataa xafiisyada laga fadhiyo aqalada lagu shaqeeyaa shaqadii sideedii bay u socotaa marka dadku mushaarkoodina qaataan ayaa naga go'an in la siiyo xataa markii dhaqaaluhu yaraado marka waxaan isku dayaynaa lana shaqaynaynaa beesha caalamka inaan ka raadino kab dhaqaaleena ka raadino si aad ogtiin markii horeba kab baa jiray marka horeba dhaqaalaan soo saarayn dhaqaale inaga wada filan ma hayn laakiin waan soo kacaynay oo bisha ka dambaysa ayaa yaraanaysa waxa foogaha ah ee aan dibadda uga baahnay yaraanayay laakiin maanta haddana hoos baa mar kale loo dhacay beesha caalamkuna way nala socotaa waana nala fahmayaan marka waxaan ku jirnaa inaan calculationkaas la xisaabta isla keenno inaan beesha caalamka kab ka helay inagu filan si wixii dawladdu ay bixinaysaa bixiso ama ciidamada ha ahaato raashigooda ama mushaarooyinka ha ahaato ama hawlgalka waxa lagu shaqeynaya ha ahaatee sidii inaan u bixino bil walba mar waqtigeedii la gaadho ayaa runtii ay naga go'an tahay talabaad aan doonayna ka hadlo waxa weeye marka dhibaato noocan oo kale ay dhacdo ascaartu sare u kacda ascaartu haday sare u kacdana dadkii Soomaaliyeed ee fuqarada ah ma iibsan karayaan wixii la iibsanayay waxa marka annaga iyo bay'ac mushtarigu ganacsatadu iyo dawladdu isla gaadhay in cuntooyinka daruuriga ah ee loo baahan yahay dadkeenu cunaan in cashuurta laga yareeyo qaarna laga badaayaba ilaa iyo waqtiga aan gaadhayno inaga xanuunkan inaga tago sida daraadeed berita marka laga bilaabo bisha 15keeda bariiska iyo timirta wixii yaalay waxa soo socda waxa laga deynayaa boqolkiiba 100 cashuur la'aan weeyaan bari marka laga bilaabo hadii waxa weeye bariiska iyo timirta saliidda iyo burka iyagana waxa laga deynayaa boqolkiiba 50 marka bari laga bilaabo ilaa iyo 3 bilood baan imika nidhi adduunku imika 3 bilood buu ku socdaa 3 bilood marka la gaarana dib baa loo sheegay waxaan doonayaa hoosta ka xariiqaya waxa weeye lacagta waxa loo deynayaa waxa weeyaan waxa loo faa'iideynayaa dadka maxaysatada ee wax iibsanaya ayaa loo faa'iideynayaa sidaa daraadeed waxaan indhaha ku hayn doonaa in lacagta aan deynay faa'iidadeedu ay dadka Soomaaliyeed u tarto wax oo aanay dhexda istaagin aanay dhexda lagu goosan ayaan ku dadaalaynaa dawladdu waxay eegi doontaa
lacagta aan deynay ciday u faa'iideynaysaa eegi doontaa waa faa'iidaduna waxa weeye qofka wax soo iibsanaya ee dollarka haysta ama $2 ama inta ka yar ee soo iibsanaya saliidda iyo timirta iyo bariiska gaar ahaan imika rabadaan soo galayso waxa naga go'aantay waxa weeye inaan asxaartaas aan halkooda ka dhaqaaqin in fact in hoos u dhacan ayaa loo baahan yahay marka waxa aan sameeynaa hadii la yiraahdo inaan arinta ka shaqeyno inaan idin la socodsiino in wixii dhimanaan meel kale ka keeno ayaan ku dadaalaynaa dawladdu marka dadaal weyn bay ugu jirtaa in xanuunka dagaal la galo xagga dhaqaalaha dagaal laga galo aanu dadka Soomaaliyeedna aanu cuntadooda iyo arrimahooda iyo socodkooda aan waxba yeelin ma garanaysa dhaqaalahooda aan waxba yeelin hadduu yeelana meel kab aan ka helo wax soo saarka gudaha waa arrin aad iyo aad u muhiim ah maanta inagoo dalka Soomaaliyeed joogna oo biyo baad bay yaalaan dalka Soomaaliyeed oo wax soo saarka meeshaad wax ku beerta wax ka soo baxayaan yaa inaan ku xidhnaano bariis iyo baasto dibadda ka imanaya waa ayaan darro runtii weeye ayaan darradaasina waxa keenay dhibaatooyinkii dalkani ku jiray baa keenay maanta dadaal waxa loogu jiraa oo deyntii naga cafiya waxa weeye in beeraha la qodo in wax la soo saaro in galeedeeni masagadeeni lagu noqdo in cuntadii la soo saari jiray lagu noqdo oo aan wax soo saarka korrino ayaa runtii quwada la saari doona mashaariic badan baana soo socota oo wabiyada ka shaqeyn doonta oo beeraha dadka kala shaqeyn doonta oo macadaadka loo baahan yahay keeni doonta marka dalkani inuu isku filaada waajib weey ilaahay wax walba uu nasiiyay inuu isku filaada waajib weeye taasina waxay noqonaysaa maanta investmentka wadanka soo gala inay beeruhu number 1 ka yihiin hadii la isku xidhka dalka